Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga kusoo dhawaada janalkeyga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties waa walaashin Mema oo idiin wada muuqaal cusub. Fadlan haddii aad janalku cusub tahay subscribe inoo saar, haddii aad hore inoola joogtayna kusoo dhawow qaybta commentiga laga arko. Fadlan ha ka hilmaamin muuqaalka inaad like inoo saarto, waayo like waxay iga caawinaysaa inuu dad badan gaaro. Sidoo kale share asxaabtaada la wadaag haddii uu muuqaalka ku cajabiyo. Aad iyo aad ayaad u mahadsantiin dhammaantiinaba. kusoo dhawaada juice aan idinkugu talagalay oo aan aad iyo aad u soo diyaariyay. waxa uu ka samaysan yahay 3 nooc oo qudrad ama fruities ah. waxa ugu talagalay inaan idila wadaago asxaabta. sidoo kale waxay aad iyo aad muhiim u yihiin xagga caafimaadka, ayay muhiim u yihiin. waxay anfacayaan waxyaabo badan, ayay ka saacidayaan haddii aad samaysato 3 nooc ee fruitieska oo aad cabitaan ka dhigato. cabitaanka run ahaantii waa mid aad iyo aad aan ugu talagalay inaan idinkaaga faa'iideeyo idinkane. run ahaantii caafimaad ahaan dadka daneynayo inay weyd ahaan ama culayska ay kor u qaadaan ama inay iska dhimaan aad ay ugu fiican yahay. sidoo kale maqaarka iyo maskax ahaan waxyaabo badan ayaa jiro oo dadka ka anfacayo. fruitiskaneti waxaa waaye muhiim waaye. juicekan haddii aad sidan u diyaarsato hubaal waa ka heli doontaa. mooska aan ka sameeyey waa moos macaan iyo tufaax iyo cambo oo ah wax walbo oo aad ka heli karto agaarkaaga. sida ujeeda halkan waxaa igu diyaarsan 3 nooc haddii ahaan lahay moos macaanka, tufaaxa iyo cambaha. marka waxaa rabaa inaan idin faahfaahiyo wax walbo oo caafimaadka oo adiga muhiim ku ah aad ka heli karto 3doodaba. muuska wuxuu jirka siiyaa energy, wuxuu joogteeyaa caadada uu saxaa. sidoo kale xanuunka caadada dadka ku qabo ayuu ka yareeyaa. maskaxda ayuu kobciyaa, wuxuu ka hortagaa ama uu ugu wanaagsan yahay depressionka, niyadjabka dadka ku dhaco. wuxuu yareeyaa khataraha wadna xanuunka iyo dhiigkarka dadka ugu jiro ayuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay. lafaha ayuu dhisaa. dadka daneynayo inay cayilaan sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa weight gainka ama culayska sida jirka uu u kordhi lahaa ayuu ka caawinaya. tufaaxa wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay wadnaha iyo caafimaadka wadnaha iyo dheefshiidka iyo dadka calool fadhiga qabo. wuxuu jirka saaraa sunta. wuxuu aad iyo aad uga qayb qaataa dadka raba inay culayska iska rida ama cayilka ay iska dhimaan. wuxuu u wanaagsan yahay xagga neerfaha ayuu aad ugu wanaagsan yahay. jirka difaaciisana waa uu ka qayb qaataa oo jirka waxa uu siiyaa difaac fara badan. marka haddii aad u baahan tahay caafimaadkaaga iyo 3dan shay oo fruitiska aad iyo aad ayay ku anfacayaan. haddii aad rabto inaad iscaateysidne waxaa isticmaalaysaa tufaaxa adiga oo ka dhiganayo ama u isticmaalayo qaab iscaateyn ah jadwal ahaan. marka waa ka asxaabteeda qaaliga. sidoo kale waxaa halkan ii yaalo oo ii diyaarsan waxa waaye cambaha. cambaha asagana wuxuu faa'iido badan oo u leeyahay jirka ayuu u leeyahay. waxyaabo badan oo waxaa jiro uu ka qayb qaato oo uu kaa caawin karo. haddii ahaan leed xitaa dadka doonayo inay iscayiliyaan, 2dan shay ee ah cabitaanka cambaha iyo muuska ayay isku shiidan karaan. cambuhu wuxuu qurxiyaa skinka, indhahana wuu u wanaagsan yahay. kolestaroolka dadka qabana aad ayuu u wanaagsan yahay. minerals badan ayaa ka buuxo. wuxuu saaraa agniga ama nabraha. dadka agoolka ama dandraftiga qabana aad buu ugu fiican yahay, iyo dadka sokorta qabo iyo dadka xagga taranka aad ayuu u wanaagsan yahay. difaaca jirka sidoo kale wuxuu ka hortagaa wadna xanuunka iyo kansarka iyo sidoo kale niyadjabka. marka cambaha waxaa waaye caafimaadkiisa halka laguma soo koobi karo. wuxuu kaloo ka qayb qaataa dadka rabo inay cayilka ee kor iskugu qaadaan oo ee culeyskooda kordhiyaan oo kale inay cayilaan dadka daneynayo aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay caafimaad ahaan. waana juice run ahaantii markii aad shiidato aad iyo aad uga heli doontid sida aniga aan uga helay oo kale. marka 3dan nooc aan idin tilmaamay ee cabitaanka ah waxyaabo badan oo waxaa jiro ay ka sameeyeen sida haddii ahaan lahayd xagga in wadnaha, caafimaadka wadnaha aad ugu wanaagsan yihiin. xagga dhiigkarka iyo sokorta ay aad iyo aad ugu wanaagsan yihiin, siiba moos macaanka. marka haddii aad daneyneyso in culayska iska rido, tufaax ayaa aad ugu wanaagsan. haddii aad daneyneyso inaad miisaankaaga kor u qaado, waxaa aad iyo aad ugu wanaagsan cambaha iyo muuska ayaa ugu wanaagsan. haddii aad rabto waad ka dhigan kartaa. haddii aad si caadi ah adigoona cayil ama caato midna u isticmaalaynin
dhamaantooda waa isticmaali kartaa si iska normal sida aniga u isticmaalayo oo kale adigoo isku darsanayo fruit walbo oo sameysatidna waxa uu qurxiyaa maqaarka ayuu qurxiyaa maxaa yeelay wax walbo yacni oo fruit waxa waaye waxa ku jiro skin yacni wax oo aad iyo aad u siinayo caafimaad ahaan iyo sidoo kale in yacni quruxda maqaarka uu ka qayb qaato marka asxaabta qaaliga sida ujeedaan halkan waxa igu diyaarsan garaafada cabitaanka waxa rabaa in cabitaanka inoo shiido halkaas kale waxa igu diyaarsan sokorti iyo barafki oo yacni baraf iyo yacni diyaarsan sida ujeedaan hadeerna waxaan ku shubayaa garaafadii ama makiinada cabitaanka aan ku shiidi lahaa sida uu taqaanaanba muuska waa muus macaan muus caadi iyo muus macaan ayaa jiro marka sida u taqaanaan ama muus sokorow waa ka marka tufaaxa hadii aad rabto waxa sameyn kartaa tusaalahan ina ku hooshid labada marka isku shiido mooska iyo cambaha hadii aad doonayso oo maana daneyneynin in yacni muuska uu kasoo dhadhamo cambaha waad iska dayn kartaa laakiin waxa aad iyo aad ila sii fiican aniga markii oo tufaaxa tusaalahan lagu hoolo ama lagu jarjaro hadii aadan macni markaas diideynin in yacni isdhexgalka aad daneynayso oo kale waa iska dayn kartaa sidaad ani iskugu shiiday oo kale iskugu shiidin kartaa marka waa ka sida ujeedaan waa isku wada daray waxa ii harsan inaan ku daro biyo yar ma rabo inaa biyo badan aan ku shiido sababtoo waxaan rabaa juuskayga inuu noqdo mid adag ma jecli inuu biyo iga noqdo marka intaas yar ayaa ugu talagalay inaan ku shiido fruutkeena waayo barafka ayaa biyaha isagana taasna waa inaa xasuusteena ee ku jirta sababta aan barafka ugu shiidayna wax kale ma ahan waayo waxaa doonaya inuu qaboob zaa'id ii noqdo cabitaanka oo yacni maadaama fruut walba waxaa ku fiican in baraf lagu shiido si uu u noqdo qaboob zaa'id hadii aadan daneyneynin biyo qaboob waa iskaga shiidan kartaa ama baraf yar ayaad ku darsan kartaa waa adiga iyo hadba dooqaaga marka aniga sidaan ayaa door biday sida ujeedaan makiinadiina waa ka cabitaankeenina waa shiidanaa ilaa xoogaa daqiiqo waa ina u yara sugtaa hadii aad doonaysid inaadan miirin waaye wax badan oo miiritaan u baahan kuma jiro laakiin hadii aad rabto inaad miirtid oo kale waa iska caadi hadii taas ayadana ay tahay adiga dooqaaga marka aniga marka aan shiido waxa waaye si fiican inaan isku dhex geliyo oo aan u sugo ilaa xoogaa muddo ilaa 5 daqiiqo makiinad weyn aan ku shiidayaa sida ujeedaan waxa waaye asxaabta qaaliga cambaheeni iyo tufaaxeeni iyo muus macaankeeni halkan ayaan ku shiidaneynaa sida aan ugu talagalay inaan idinla wadaago channelka waxyaabo badan waxaa jirto aan soo gelinayo oo hadii ahaan cuntooyinka noocyada kala duwan hadii ahaan cabitaanada noocyada kala duwan iyo macmacaanka marka idinkana waxa waaye dadka loo dadaalaya tihiin waan ku faraxsanahay maadaama ay dad markastaba ay dad igu soo biirayaan asxaab qaali aad iyo aad ayay taas ii siinaysaa dhiirigelin iyo inaan muujiyo sidii aan hore ugu sii dhaqaaqi lahaa oo aan mar walba noqon lahaa qof channelka wax badan soo galiya oo mar walba yacni dhiirigelintiina aan hore ugu sii dhaqaaqo marka idinkana waxa waaye yaa mar walba garabkeyga idinka arko marka waa ka inta yar waxaan u reebtay inaan ku shubo garaafadii cabitaanka oo halka igu diyaarsan ayadana waayo waxaan rabaa in qaboob zaa'id turbo oo ii noqdo sida dareemaysaanba idinka qaarna waxaan ku shiiday cabitaankeeni qaarna sidoo kale waxaan ku shubo makiinadii waxaan ku gadinayaa cabitaankii inoo shiidnaa sida ujeedaan halka garaafadii iyo waxa igu diyaarsan galaasmankii cabitaanka marka waa ka anigii ku gadiyay cambihii iyo tufaaxii iyo muuskii oo inaba laga sheekey karin oo juice aad iyo aad u qaboob aad iyo aadna u adag oo ii noqday cabitaanka mar haduu biyo ka dhigtid dhadhanka dhan ayaa ka dhumaayo marka waa ka si uusan dhadhanka kaaga dhumin oo kale waxaa sameynaysaa inaad rasiin ka dhigto cabitaankaagii si juice aad iyo aad u qaboob aad iyo aad u macaan badan oo dhan walba ka dhisan si uu yacni kuugu soo baxo marka cabitaankeenina sida ujeedaan waa diyaar wax u dhiman haba yaraatee ma jirto kaliya idinka unbaa ka maqan marka waa ka cabitaankiina
waan soo diyaariyey. Waxyaabaha aan kor ugu shubaayo cabitaanka aan ku qurxinayo waxaa ka mid ah sida baraf yar iyo sidoo kale tufaaxi iyo cambihii iyo muuski oo hal xabo ah. Maxaa yeelay cunada waxaa jirto qaab loo diyaariyo iyo qaab loo soo bandhigo, marka waxaa waaye qaabka loo soo bandhigayo waaye taas. Sida ujeedaana barafkii oo ii diyaarsanaa ayaan kor uga darayaa. Weli waxaa waaye qabowgeeniisi oo zaid uu usii noqdo ayaan daneynayaa, sidaa fahmi kartaanba idinku. Haddii aad doontaan waxyaabo yar ayaad ka dhigan kartaan barafka idinkoon iska badineynin. Marka waa ka muuskin waxaa waaye dhinacaha laga saarayaa galaasmankii cabitaanka uu ku diyaarsanaa, si yacni qurux uu iigu siiyo cabitaankeygii. Waayo wax walbo aan rabay inaan shiito oo cabitaan aan ka dhigo waan diyaariyey, laakiin intadan waxaa waaye inaan ku qurxiyo cabitaankii. Xabad tufaaxa lagu ridayaa, xabad kalena waxaa waaye galaaska lagu ridayaa. Sidoo kale cambe ayaa asagana ii harsan oo inaan labada dhinac aan ku rido. Waa ka asagiine waxaa waaye lagama tagin oo waxaa waaye dhammaantoodaba waa lagu qurxiyey galaasmankii, inaba lagama sheekeyn karo. Waxaan rajeynayaa inaa aad iyo aad uga hesheen sida aniga uga helay oo kale qaabka u soo bandhigay. Inkastoo aan muddo idinka maqnaa aan maalmahan waxba soo gelinin, waxaa waaye insha Allah hadda iyo wixii ka dambeeyana waxaan rajeynayaa inaa aad iyo aad u soo galay channelka waxyaabo badan oo idinkana aad ka faa'iidi doontaan. Insha Allah anigana dadaalkayga si laba jibaari doono. Asxaabta cusub ee igu soo biirteen waxaan leeyahay welcome again, soo dhawaada mar kale iyo mar kale. Waxaa waaye dadka hore inoola joogay dad wanaagsan ay ahaayeen, idinkana sidoo kale dad wanaagsan aad tihiin. Asxaab qaali ah wada tihiin dhammaantiinaba. Dadka aad kadib inoogu soo biiri doonaan iyagana waxaan leenahay welcome, gacno furan maa laamase weji furan iyo waxaa waaye wax walba oo wanaag ah maasha Allah. Marka asxaabta qaaliga waxaa waaye war ma idinku daalinayo, cabitaankeena sidan quruxda badan ayuu ku soo baxay. Garaafadii cabitaankana waa ka ayadana halkaas ayay ku diyaarsan tahay sida idinkuba arki kartaan. Marka cabitaankeena aniga ma badinin oo zaid kama aanan dhigin, maxaa yeelay juice rasiin ah ayaan ka dhigay oo rasiinka ayaan aad iyo aad aan u doorbiday. Waa ka marka sida idinkuba u dhantihiin waxaan idinkaaga tagayaa caafimaad dhammaantiinaba insha Allah. Aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Subscribe channelka.